السلام عليكم أصحابتي وأنا سلام ملك استأجوكتين أصحابتي يوتيوب كي كحرن وحالي هاي فضلا هدي أيجو حرنتي هنا وحالي هاي كومنتي يلايك يشير هاي لاوننا فضلا أصحابي وحالي هاي وحيرا نود من سبسكرايب كا يودي رجلية وحنكر عاوز سبسكرايب عصنا يا وحنكر سبسكرايب وحنكر سبسكرايب عاوز عصنا وأنا سبسكرايب يسارتان أصحابي meel kastoo adduunka ka jirtaan hadduu codkayga soo gaaro fadlan waa iga codsi subscribe-ya ay ka shidan tahay waxaan ku waa in aad youtube-kayga soo booqataan haddii ay ku dhow yahay iyo hadduu kaa dheeryahay waa inaad raadisaa youtube-ka waxaa ku qortaa Faadumo Qurux official waa inaad ku qortaa please sanadka dhowrka beriyo ka harsan waa inaad waydu salaamay waa kabta xaaji waxaa iskale fariintan walaalkay maxamed bk fariin ayaad noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan oo waliba anigu aan ugu horeeyo fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan aragtay u dhageystay fariintaadii walaalkayo waxaa jirta arrin markaad fanka ka bixaysay ayaan hore markaa fanka bixaysay arrin waxaa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoose isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sida caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaanba jeclaystayba oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK ii gaarsiiya su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda public aan kugu weydiiyaa insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo abtigay Axmed Beef marka muhiimaddu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca hadduu jiro BKyo inaad tiraahdid dar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligeen anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadii lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysaa adoon dhibtoonan heysini ka soo baxa inaad tiraahay ee horto saas inaad tiraahay saxsanayd marka muhiimaddu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca hadduu jiro BKyo inaad tiraahdid dar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligeen anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadii lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysaa adoon dhibtoonan heysini ka soo baxa inaad tiraahay ee horto saas inaad tiraahay saxsanayd marka walaalkayo haddii uusan mashruuc jirin bal arkaya waxa la yiri maxaa la dhigi jiray waada iyo hebelow maxaa kulansiiyay waa mahmaadaas waaweynka waaye ii saxa cid taqaana ii saxday waxa adigu xaa kulmiyay hebel iyo walba hebel maxaa kulmiyay BKyo mashruuca inuu jiro waxa anigu uga sii shakiyay oo aan ku sii aaminay xoogaay alashan tashkiilintaada saa'id waaye ama biifa baroon oo soo dahdahayba oo dhowr sano ceelasha biyaha ku xaraysnaa oo wax barahayba oo maanta labadoo xadiis noo sheegi karo adigu adoo xabad aayad quraan aan ii sheegi karin aad maanta dhow waxa ku celceliyay fanka hoog buu ahaa soo baxay ilaa shaqo laga rabaa waa lagu soo xujeeyay saan dareemayo mashruuca beginning waa idin sheegay mashruuca qaadashadiisa waxay tahay hadda lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin ina qarsato ma aha anagoo kula ogaad noo sheegi lahayd lacaga jirto soo yaa leena dhiileed markaas lagu lama yaabeen moogta marka walaalkay BKyo yaaba heli karaba toobad keen
fanki iska daa aad ummadaasi ta kulansiiso caawa labada inta iska heshay israacdo aad dambi kugu filan ba haddii uu si kala xataa u ahaa waayo dambi oo qiil kasta loo raadsho fanka oo xataa muusiga la iska dhaafo la yidhaha muusiguna waa iska qurxinaysa la iska daayo dadka la isu keeno dhibka kaaga imaan kara marka waxay isku sameeyaan aaba dambi noogu filayd lacagteennana xaaraan kama dhigi kartaba walaalow marka adoo bikayo guri ka dhistay anigu fanka guri kama dhisan raasamaalna kama lihi adoo guri ka dhistay waxa aad uga maarantay baasa iyo qaadashadeeda waaye salaad cali jar wuxuu dhihi jiray lacag waa qaadasho codkuna waa anige yaa lacag waa qaadasho mashruucu waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid markaas hadduu mashruucu jiro mashruucaas waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid laakiin qishka si babliga u sheeg ummadana u sheeg ya toobadkeen wadabaaso cidda diidaysa anigu inay jirto uma malaynayaba fanaaniinta soomaalida oo dhan waa wada qaxan qax horay ka qaadayan horay ka dafayan horay just like that